رئيس الوزراء جمهورية الديمقراطية الفيدرالية إثيوبيا دكتور أبي أحمد ayaa ka qayb galay shirka isbahaysiga dalalka BRICS la isku yiraahdo ee ka socda magaalada Kazan ee dalkaasi Ruushka oo markii 16aad uu ka socdo shirkaasi. Ra'iisul Wasaare Dr. Abiy Ahmed ayaa hadaba khudbad halkaas ka soo jeediyay waxa uu ku sheegay in isla markaasina ururka isbahaysiga BRICS uu yahay urur isla markaasina si cadaalad ah u qayb galinaya dalalka xubnaha ka ah iyo isla markaasina isku duubnaanshaha iyo waliba si wada jira in horumar loo gaadho uu ka shaqeeyo isbahaysiga ururka BRICS. I believe BRICS is uniquely positioned to galvanize support for a fair. waxaan ku kalsoonahay in uu isbahaysiga BRICS yahay urur si cadaalad ah simnaan iyo waliba isku duubnaan dalalka iyo ka qaybgalayaasha oo ka qaybgalinaya si wanaagsan si ay u qaybgali lahaayeen oo si wada jirahna in horumar lagu gaadho ka shaqeeya inuu yahay ururkaasi. si wada jir ah ayaan horumar ku gaadhaynaa waana masrax fiiro gaar ah siinaya dalalka soo koraya waana masrax ballaaran oo isla markaasina dalalka soo koraya fikradahooda caalamka si fudud ugu soo bandhigaya. gaar ahaan Ethiopia waxaan codsanaysaa in golaha ammaanka ay hay'adda qaramada midoobay uu dib habeen ku sameeyo wakiilnimada dalalka qaaradda Afrika ku matalaya golaha ammaanka ay hay'adda qaramada midoobay. masraxani dhammaan wadamada ka soo qayb galay oo dhan waxaan aaminsanahay inay taageersan yihiin in Afrika ay wakiil ku yeelato golaha ammaanku ay tahay mid kaalin weyn ka qaadanaysa oo isla markaasina caalamku hadba kaalinta uu doonayo in uu ku dhaqaaqo ay dalka qaaradda Afrikana kaalin wanaagsan ay ku yeelan karayaan oo arrintaasina ay suurtagal tahay oo ay ku muujin karayaan hadba doorka looga baahan yahay dalalka qaaradda Afrika. haddaba dalalka isbahaysiga ururka BRICS waxay ka haystaan dhaqaalaha dalalka caalamka 30% halka ay dalka Ethiopia ay kaalinta saddexaad kaga jirto dalalka horumarkooda iyo dhaqaalahooda u sareeyo ee ka hooseeya saxaraha dalalka qaaradda Afrika. Our nation now the third largest economy in sub-Saharan Africa. Ethiopia waa dalka saddexaad ee u dhaqaalaha sareeya dalalka saxaraha Afrika ka hooseeya waana wadanka khayraad dabiici badan oo leh isla markaasina khayraadka kala duwan ee dabiiciga ah ee uu leeyahay ay noqonayaan kuwa faa'iidooyin kala duwan u leh dalka Ethiopia. dhinaca dhaqaalaha iyo fursadaha kala duwan ee dhinaca maalgashiga ayaa u ballaadhay. arrintaasina waxa uu suurtageliyay mashruuca iyo qorshaha macroeconomiga ee dalka Ethiopia ay dhaqan gelisay waxa uu suurtageliyay in maalgelintu ay ballaadhato shaqo abuurkuna uu heer wanaagsan u gaadho. ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegay in dalka Ethiopia ay ka socdaan shaqooyin kala duwan oo isla markaasina isku filaanshaha dhinaca damaanad qaadka cunnada laga qabanayo gaar ahaan soo saarka khayraadka beeraha dadaallo kala duwan ay ka socdaan dhinaca soo saarka qamandida iyo soo saarada kala duwan ee beeraha iyo si isku filaansho dhinaca damaanad qaadka cunnada loo gaari lahaa Ethiopia dadaallo kala duwan ayay wadaa horumar badanna ka socda. Ethiopia is equally committed to ensuring food security. Ethiopia waxay wadaa shaqooyin lagu xaqiijinayo damaanad qaadka cunnada dhinaca beeraha gaar ahaan soo saarka qamandida iyo soo saarka baqalada kala duwan sidii guulo waaweyn looga gaari lahaa. waxaanay wadaa Ethiopia dhinaca shaqooyinka soo saarka khayraadka macdanta iyo khayraadiyada kala duwan ee dalka Ethiopia ay hodanka ku tahay. waxay dawladda Ethiopia ka go'an inay xaqiijiso yoolasha dalalka isbahaysiga BRICS qorshaha ay tigsanayaan iyo horumarka ay tigsanayaan. dhinaca kale ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Ethiopia oo ka qayb galay shirka 16aad ee dalalka isbahaysiga BRICS oo Ethiopia ay ka mid tahay ee ka socda magaalada Kazan ee dalkaasi Ruushka waxa uu sidoo kale barbar socday wadahadalka uu la yeeshay madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin oo ay ka wada hadleen iskaashiga dhinaca dhaqaalaha iyo xiriirka taariikhiga ah ee saaxiibtinimada ka dhaxaysa Ethiopia iyo dalka Ruushka. waxaanu ra'iisul wasaaruhu uu sheegay in xiriirka saaxiibtinimada ee Ethiopia iyo Ruushka kasoko in Ethiopia ka mid noqoto dalalka isbahaysiga BRICS ay suurtagelisay in xiriirkoodu si laba jimaarmo oo si xoogaysto xiriirka ka dhaxeeya dhinaca dhaqaalaha iyo dhinacyada kala duwan ee Ethiopia iyo Ruushku ay wada leeyihiin.